Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to my channel. Today waxa weeyaan my second day of vlogging in Norway. Maanta waxaan soo daawanaynaa magaalada Royal Palace baan tagnay. Waa guriga boqoradda Norway ay leedahay ama qasarkeeda. Saad u arkaysaanba waa masaaxad aad iyo aad u ballaaran buu haystaa. Halkaa kuraasi baa ku taala. Fadhiisan kartaan ood ka daawan kartaan magaalada oo dhan halkaasaad ka arkaysaan. Sawiraad ka qaadan kartaa. And that is my niece. Ayada ay soo daawadsiinaysa magaalada insha Allah today. And saad u arkaysaanba enjoy my vlog today insha Allah. And weeyaan boqoradda wuxuu ku yaalaa xagga dambe palace-ka ama qasarka dabadiisa ayuu ku yaalaa. Beer yaro aad u qurux badan baa ku taala. Waxaasina waa dhirta caleenteedii oo soo daadatay maadaama qabowihii soo gelayo. Laakiin imagine samarka aad iyo aad bay u qurux badnaanaysaa. qaybtanina waxa weeyaan qaybtii badda waxa weeyaan ku yaala meelo badan oo laga cunteeyo ayaa ku yaala. Waxa ku yaala meeshii laga raacayay doonidaasi waxay tagtaa Belgium-kay ku geynaysaa. Sida wax badan oo ma soconayso. Halkaasi waa Leo Island. aad iyo aad bay meeshu qurux badan tahay. I really love it. Samarkaad iman kartaa, iska yara fadhiisan kartaa. هذا دوني halkaas waa baarlamaanka Norway. Waxa maalintaa jirtay aan jecelahay protest ama mudaharaad baa jiray ay Iranians iska leeyihiin. I don't know the story ma garanayo wax ku dhacay laakiin picture dad bay soo dhigeen. Marka iyadoo protestkii aanay bilaabmanin ayaan anagu aanu ka tagnay meeshii. If you want to do shopping, they have high street shops and they have designer shops as well. Waadinka wada arka calaamadahoogii. They're all the designer shops oo dhan baa ku yaala. Gucci baa ku yaala. Waxa ku yaala Louis Vuitton baa ku yaala. You name it. Imikana moolka ayaan dhex galaynaa. Waana bal soo daawanaynaa waxay hayaan kuwa UK ka fiican yahay in kale. Horta sidaa uma sii weyna. Laakiin dee wax kasta u baahan tahay daruuri waad ka helaysaa. Halkaas waad iska yara fadhiisanaysaa markaad soo daashid. Soo daashid you can have a little coffee. waxaan u malaynayaa Christmaskii bay usii dabaaldegayaan oo wada balloons waaweyn bay ku xidheen. Masha Allah inaan xijaaban baa xijaabkan xayeysiinaysa. Imika insha Allah waan iska baxaynaa, waan cunto tegaynaa, waan qada tegaynaa insha Allah. Gaarigaygan halkan aan ku parking garaystay. Dee marka haddaad doonaysaan ride inaan idin sii kaxeeyo waad soo fuuli kartaan. waan idinla kaftamayaa. Waxaan ka helay flower-ka. aad buu qurux badan yahay flower-ku. different colors bay isku dareen oo kala nooca. Marka insha Allah dee daawasho wanaagsan.
couldn't find meel aan ka cuntayno aad iyo aad bay u buuxeen restauranadu, so we end up having burgers, and I haven't had burgers for ages, so I said waa maanta inaan cuno burger, waa inaan cuno. It was really nice. Markaan soo dharegnay alxamdulilah, waxaanu soo ciyaaraynaa iminkana inamadan gameka la soo ciyaaraya, laser game baan soo ciyaaraynaa. So waxaan nahay 2 groups, me and one of my nephew baa isla ciyaaraynaa, one group ah, the other one labada kalena waa group bay iyaguna yihiin, balan aragna kasoo badiya. And the first round alxamdulilah aniga iyo my nephew Idris baa win garaynay. shan aadka u quruxda badanna waxa weeyaan librarygooda aad iyo aad bay u qurux badan tahay. It's similar to Birmingham one. Halkaasaad wax ku akhrisanaysaa, dhimanaysaa. Halkan kalena waa Opera House. Waxaanu koraynaa insha Allah xagga sare, roofka sareanu koraynaa. Magaaladoo dhan baad ka arkaysaa. It was absolutely beautiful habeenkaas. I hope idinkuna inaad ka hesheen. Waana jeclaan lahaa idinkuna inaad experience-kaas oo kala soo qaadataan one day, aad tagtaan. Norway waa wadan aad u qurux badan, especially badda. Aniga waan jecelahay badda, aad ayaanu jecelahay. Waana subxaan allah, halkan magaalada city centerka waxay ka dhiseen waa wada cimaarado wada dhaadheer. Aad bay waxaan u malaynayaa Norway guryaha way ku yar yihiin, waxay u badan yihiin cimaaradan jecelahay. I mean flats bay u badan. Wallahi waanu enjoy garaynay habeenkaas. Halkan meeshan aan joognay imika dadku way iska yimaadaan, way iska fadhiistaan, harkoodii bay la ciyaarayaan. Dadkani way ciyaarayaan, salsay ciyaarayaan. Mar baan siri ku biirtaaye dee waanan garanaynin, inkastoonan ciyaartaas ku fiicnayn, laakiin waan jecelahay inaan barto. They just having wonderful time, as you see. Halkan kalena waxaa joogtaa aroosad baad joogtaa, sawiro iska qaadaysa iyadana. Masha Allah waa aroosad muslimada xijaaban. Assalamu alaikum. Welcome to the second day. Maanta waxaanu tagnay meel kale la geeyay. Meeshaasi waxa weeyaan nin baa sameeyay beertan. Waa meelaha ugu caansan Norway. Wuxuuna ka sameeyay dad uu ka sameeyay sanamo. Sanamadaas oo aad iyo aad u kala duwan. Family iyagoo single ah buu ka dhigay. Laakiin aad idinma tusayo, sanamadu aad bay wada qaawan yihiin. Marka idin tusi maayo. Ilmaha yar ee xanaaqsan, one of the most famous child ayuu yahay baa la yidhi ilmaha yari. I don't know wuxuu famous ku yahay, laakiin caan weeyaan baa la yidhi ilmaha yari. Halkan biyahaasaa ku yaala, dee waad arkaysaa waa meel aad u qurux badan. Waxaa jirta beertu intan oo keliya maaha, xoogaa baa la soconayaa, jaranjarooyin badan baa la korayaa. Maanta waxaan u malaynaya intii shalay macmacaankan cunay ayaan iska soo matajinayaa. Intii baa layga soo saaraya, waxaa la yidhi yaanay bal baruur yaanay naaxine, bal intii ka soo shiila maanta. Marka halkan baanu nimi, my nieces bay soo kaxeeyey, iyaga hablahan habrarka wahay bay soo kaxeeyey, magaaladay soo kala tustusayey. Caruusadii aad arooskeeda daawateen, Juweria, Mona iyo Mona saaxiibadeed ayaa ii yimi, isoo kaxeeyey maanta.
meeshan baanu joognaa jaranjarooyin badan baana sugaya inaanu korno ilaahay bal khayr ha ka dhige ila daawada insha allah. halkani aad bay u qurux badan tahay, you can take pictures, jaro qurux badan ayaad ka qaadan kartaa. jaranjaradan kalenu koraynaa, I think 3 jaranjaro kale noo hadhay, bal soo duceeye ilaahayna asture. Weiter durch alle weiteren Lebensstadien darstellen, die ein Mensch durchlebt. finally xabadii ugu dambeysay ayaan soo kornay. dee maxaa dhidid naga dhacay maanta, waxaan u malaynayaa 5 kiilo baa iga Das hat ja nicht alles allein gemacht. Also du meinst allein so rausgehauen? Ja, ich habe auch so, ich war in Frankreich. Von Gustav Hügeland. imika waxaanu ku soconaa meel restaurant ah, buurka kadeed buu ku yaalaa. waan idin tusi doonaa viewga insha allah. restaurantkaas waad ka cuntayn kartaan, ma huba ina la seexan karo laakiin horta waad ka cuntayn kartaan. magaaladii dewata magaaladii oo dhan halkaasaad ka arkaysaa. my niece is showing me guriga halku ku yaala xaafadii, ayay halkaa iga tusaysaa meesha ku beegan yahay. meeshan kama sheekeyn karo say u qurux badan tahay. yani kamaradu ma soo saareyso quruxda normalka marka meesha la joogo ma i tusayso. haddaad joogi lahaydeen, it's actually breathtaking, it's so beautiful. I would love to live here, it's my dream. Imagine halkaasaad maalin kasta kasoo kacaysid ood caalamka saa ud eegaysid, yani maxaa ka qurux badan. aad baan uga helay, aad baan u jeclaystay, aad bay ugu mahadsan yihiin hablahan habararka u ahay. Thank you so much. This is Muna again. She's saying hi to you guys. Det er en mølla. Ja. Så ser dere Hei, følge mølla. Hvis ikke mølla. Nei. Hvor er hovedøyene? Nei, det er bak der. Det er det. Er det en skjære? Det er hodet, ja. Det synes jeg på det. We had a great time today, and now we're going to eat. maanta waxaan tegayaa restaurant cusub. I've never been to Asian restaurant before, especially Koreans, Chinese. maanta waxaa la siinaya waxaanan hore u cunin. ilaahay haynaast restaurantka waad arkaysaan, aad buu u qurux badan yahay. It was very crowded markaanu tagnay. dadku aad buu uga buuxeen, dushana waa la joogay. imikana waxaan yara tegayaa little tour. meesha markaad cuntada kasoo dhareegtid, halkan baad isku soo yara hagaajinaysaa, makeupkaaga kusoo yara qurxinaysaa. haddii aan timaha qaawisod
timuhu ku qaawan yihiin waxa yaala bahalihii timaha lagu hagaajisanayay waxaa kaloo yaala meelihii ku feedhanaysay dekoorkiisa is so beautiful maasha allah aad buu qurux badan maanta waxaa la siinayaa sushi. It wasn't really bad, it was okay. Laakiin horta baradhadu waxa weeyaan sweet potatoes aad bay u macaaneyd maca soosku waxaas akhdarka ah isku taabanina. I don't know what it is, but it was disgusting. Laakiin sushiguna muu xumayn, u macaana. I loved the dessert. aad buu u macaana, especially the chocolate one. It was delicious. Imkan waxaan tegaynaa bowling. I'm meeting the rest of the family. All my nephews baa halkan jooga. And inshallah, I'm going to spend the rest of the night with them. I hope inaad ka hesheen maanta waxaan idin soo daawadsiiyey. Aad baan u daalanahay, waan horta tegayaa. Good night. I'll see you tomorrow morning inshallah. One train baan qaadanaynaa. Xabadda tareenku wuxuu istaagayaa, one stop buu istaagayaa, kadib wuxuu nageynayaa airportka. Meeshu saa uma foga airportku, wuxuu noqonayaa ilaa I think 30 minutes to 40 minutes or maybe less, I'm not sure. Laakiin insha allah biidni illaahi kariim markaasaan ka baxaynaa, diyaaradayda ka raacaynaa. إلهي نوصل فضوذيو سفر سلامة إن شاء الله. يلا كلن ضمبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته and thank you for watching.